haweenka xisbiga wadani meel kastoo adduunka ka joogaan gudaha iyo dibadba intaa ka bacdi anigoo ku hadlaya magaca hadday tahay taageerayaal iyo mas-uuliyiinba qaaradda Yurub ee xisbiga wadani marka ugu horeysa waxaan halkan taageero mug leh uga jeedinayaa go-aankii xisbiga wadani ka qaatay komishinka doorashooyinka qaranka ay kala noqdeen kalsoonidii runtii go-aanka ayaanu taageeraynaa laanta xisbiga wadani ee qaaradda Yurubi go-aanka aada iyo aad baanu xisbiga ugu taageeraynaa waana go-aan loo baahnaa waqti loo baahnaana yimi runtii komishinku way lumiyeen kalsoonidii iyo dhexdhexaadnimadii way lumiyeen marka in go-aanka laga qaato waa waajib baanu odhan karnaa gudoomiyaha xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro aada iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay tallaabadaa uu qaaday runtiina tallaabo iyo go-aan isaga ka soo go-ay keligii ma ahayn tala ka timi bahweynta xisbiga wadani intii xisbiga u codeysay ayay ahayd in aan la aamini karin komishinka doorashooyinka oo aan doorasho kale lagu aamini karin markaan intaa ka soo gudbo runtii xisbiga wadani haddaynu nahay waxaynu qaadanay tallaabooyin badan oo xagga tanaasulka ah waxaynu ka tanaasulnay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka oo musuq iyo isdabamarin ka dhacday ayaynu tanaasul ka bixinay inagoo markaa dalka iyo dadka waxaa weeye eegayna ama u turayna sidaa la ajligeed isla doorashadii madaxweynaha oo ah tan maanta madaxweyne muuse bixi ku soo baxay oo ahayd doorasho mugdi badan iyo corruption badan iyo isdabamarin badan ka dhacday iyadana sidaas si la mid ah ayuu xisbigu tanaasul ka bixiyey isagoo dalka iyo dadkaba u turaya waa laga yaabaa labadaa tanaasul aynu bixinay inay kulmiye u qaateen inaynu nahay gebiga iyaguba xisbul tanaasul xisbi uu mar walba tanaasulaya runtii anoo og dareenka dadka ina taageersan ama shacbiyadda ina taageersan hadday gudaha tahay iyo hadday dibadda tahayba in ay doonayaan in aynu qaadanno tallaabooyin adag oo mucaaradnimo oo aynu ku ilaalinayno hanaanka dimuqraadiyadeed iyo ku dhaqanka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kula talin lahaa hoggaanka sare xisbiga go-aanka aad maanta qaadateen ee ku saabsan komishinka doorashooyinka inuusan ahayn go-aan gorgortan geli kara ama wax tanaasula aad ka muujin kartaan hadday dhacdo inaad go-aanka tanaasul ka muujisaan sidii go-aamadii hore oo kale waxaa dhici karta inaynu luusgarayno taageerayaashii gudaha iyo kuwii dabaddaba inaynu luusgarayno haddii markaa taageerayaasha xisbigu luusgareeyana ama taageerayaashu ay meesha ka baxaan waxaa dhici doonta xisbigu inuu hoos u dhac ku yimaado in ay xisbigii ku hadhaan dee mas-uuliyiin marka xisbigu markaa ay mas-uuliyiin kula ku hadhaan awooddiisii baa baaba-aysa sharaftiisii baa baaba-aysa runtii wuxuu ku dambeynayaa sidaa maanta master 4% uu yahay dee inaad dilaal noqoto uun dowladda u nacamleeya marka inaynu karaamadayna ilaashano haddaynu reer wadani nahay mucaarad adag la nimaadno go-aamada aynu qaadanay dastuuriga ah inaan wax tanaasulaada laga samayn taas waxay keenaysaa kalsooni taageerayaasheena intaa waxaan uga gudbayaa qodobkii xisbiga ahaa waxaan u gudbayaa komishinka doorashooyinka runtii komishinka doorashooyinka waxaan leeyahay doorashadii u dambeysay ee madaxweynaha waad ku fashilanteen waxaa ka dhacay dil baa ka dhacay dhiig baa ku taaftay dhibaataa dhacday xisbi ahaan wadani ahaan haddaanan tanaasul aanan la iman halkaa waxaa ka dhici lahaa dhibaato badan baa ka dhici lahaa laakiin idinku waxaa ku tallaabsateen tallaabooyin aada u foolxun markii aad dadka diiwaan geynayseen dadka waxaa ka qaadeen indhaha waxaa ka qaadeen faraha
laakiin markii la codeynayay indhahana lagama eegin qofka farana lagama eegin buug yar baa soo malmaluuqdeen buuggaasi wuxuu keenay in doorashadii lagu noqnoqdo oo lagu shubto ayuu keenay markaa dembi weyn baad qarankan ka gashay ta kale waxa aad meesha ku fadhidaan waa kalsoonida xisbiyada weeye haddaanu annagu oo ah maanta xisbiga ugu weyn mucaaradkee wadani haddaanu kalsoonida ina kala noqono oo aanu idhaahno doorasho dambe nooma qaban kartaa ama idamaba aaminsaninba dee waxaan u malaynayaa inda adkaan iyo inaad suumiyaha soo xiirataan unbaad meesha kusii fadhiyi kartaan laakiin sifo kasto aad meesha kusii fadhiyi kartaan ma jirto marka komishinka doorashooyinka qaranka waxaan kula talin lahaa inaysan dalkan khalkhal iyo nabadgelyo darre u horseedin wixii dhace anaguna wax kastoo dhacay tanaasul baanu ka bixin in ay danta qaranku ku jirto 7 xubnood ee komishinku inay iscasilaan oo ay xilka ka tagaan si loo soo xulo 7 xubnood oo kale arrinta daba taallaa waxaa weeye oo xisbiga wadani dood ka qaba xulista 7 komishinka naftirkeeda ma aha in 7 in la bedelo oo 7 kale la keeno waxaanu dood ka qabnaa qaabka loo soo xuleeyo komishinka arrintaas oo ah arrin dastuuri ah dastuurka ku qoran waxaanu jecelnahay dastuurka in la furo komishinka doorashooyinku inay noqdaan in loo sinaado xisbiyadu inay min 3 xubnood helaan sida ku xusan qoraalkii aan madaxweynaha ku gudbiyey komishinka waxaan leeyahay dalkan halaag ha u horseedina iscasila resignation bixiya taan ugu soo jeedinaynaa wataa weeye haddaa bixin weydaan wixii meeshaa ka yimaada idinkaa qaba arrintaasina qodobkan komishinka ayaa lagu hadlaya waxaan hadalkayga kusoo koobayaa qodob aan uga hadlayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mujaahid mudane muuse biix cabdi madaxweynaha waxaan leeyahay dalkan adaa madaxweynaha mucaarad iyo muxaafid baa adaa madaxweynaha mas-uuliyadda dalkan aday ku saaranta runtii 22 cisha 120 cishaad marka joogtaa meelihii ugu darnaa ee dhibaatadii shacabka reer somaliland haysatay oo ay ka mid ahayd musuqa oo ay ka mid ahayd shaqo la-aanta oo ay ka mid ahayd cadaalad xumada wax alaaliya waxaad ka qabatay male musuqu ama sixir bararku saruuda usii kacayba maalintii aad timi wixii doolarka lagu sarifayay maanta ayay qaalisanta salaageed waxaa noo muuqataa inaad ku fashilantay inaad arrimihii bulshada wax ka qabato waxaa noola muuqata inaad awooddaada saartay in aad marto waddadii xukuumaddii kaa horreysay ee ahayd in awoodda ugu badan iyo juhdiga ugu badan la geliyo mashaariic tuugo ah oo dalkan la doonaya in laga fuliyo sida DB World madaxweynaha waxaan leeyahay waxaa taariikhda ku geli doontaa heshiiskii aad ku soo saxeexday imaaraadka ee ah saldhig military in berbere laga sameeyo runtii shir ayadoo maalin laweyd qabatay oo aad madaxtooyada ku qabatay waxaad xustay in aad ka xun tahay dhibaatada shacabka yaman haysata oo aad uga xun tahay adoo xustay dhibaato noocaas oo kalaa dadka reer somaliland inay soo martay ay leeyihiin haddana dhinaca kale waxaad soo saxeexday heshiis military oo imaaraadku beys ka samaysanaya berbera oo looga duulayo inta yaree maatada hadhay ee yaman lagu laynayo ayaad soo saxeexday marka madaxweynaha waxaan leeyahay goormaad markaas saxsan tahay mise baroortaadan ayaa ah tii orgiga runtii taariikhay ku gelaysaa dadka reer yamaneed ee mushaarka nahay ee lagu duulayo ee la gumaanayo ifkii aakhiraba wixii ka dhaca taariikhay ku gelaysaa marka xuutiyiintu ay soo jawaabaan ee dadka reer somaliland ee gobolka saaxil iyo deegaanada ku noolna ay dhibaatoobaan wixii halkaa ka dhashana dil iyo dhaawac iyo dhimashada taariikhday noo soo ku gelaysaa arrintaasna waa arrin meesha ku taalo madaxweynaha waxaan leeyahay waxaa lagaaga baahan yahay midnima lagaaga baahan yahay annagu waddani haddaanu xisbiga waddani mar walba waxaanu ku caddaynaynaa wixii qarannimada somaliland ku salaysan khaasatan arrimaha soomaaliya inaanu ku garab taaganahay oo kugu taageerayno difaaca qarannimada somaliland taasi waa muqadas weeye dastuuriyana weeye in mucaarad iyo muxaafid badalka la kala difaaco laakiin laba lasma dhex dhigi karo heshiiska DB World iyo qarnimada somaliland waa kala laba weyn laba loo kala saaraa maaha inaad isku maluuqdaan maaha DB World haddaad taageerto qaranka somaliland baad taageertay haddaad diidana qaranka ka soo horjeedaa taasi waa shirqool kulmiya wata weeye mana aqbalayna taa xisbi ah DB World waa mashruuc weeye aanu suluubsannahay
قناة سوماليلاند waa gaar weyn oo muqadas weyn labadaa inaa madaxweyne isku walaaqdo ma qortaan ta kale madaxweyne marka aad la hadlayso warbaahinta la hadlayso ama khudbadahaagii ugu dambeeyey waxay u egyihiin qaar ka aradan diblomaasiyadda ama luuqadda diblomaasiyadda waxaa tahay madaxweynihii shanaad waa tahay jamhuuriyadda somaliland waxay jirtaa 20 sano khudbadihii 30 sano 40 sano ka hor aad qaaxad ka dhex sheegi jirtay markaynu abaabulkii halkan ku jirnay dumarka iyo carruurta dee aynu kicinaynay iyo dee maanta in isku khudbada noqdaan maaha winaad si diblomaasiyadeed u hadashaa weeye markaad ka hadlayso xaaladda geeska africa sida soomaaliya etoobiya jabuuti winaad luuqad diblomaasiyadeed ku hadashaa weeye laakiin maaha dee luuqadihii iyo khudbadihii aad qaaxa iyo geed deebiye ka jeedin jirtay 40 sano ama 35 sano ka hor inaad maanta adoo madaxweynaha oo xukuumad dal dimuqraadi ah oo 20 sano jira inaad ku hadasho marka waxaan leeyahay luuqadaada diblomaasiyadeed oo iyayna noqonayn arrintaadu sida dee oday reermiyo garramaya iyuuna noqonayn waynaad ku hadashaa luuqad diblomaasiyadeed intaa waxaan kaga gudbayaa somaliland wayna gacmaha isqabsataa way la wada difaaca dastuur baa inaga dhexeeya maaha dastuurku dowladdu wixii ay doonayso inay kala baxdo waxa kalaan ka tago intaas oo muwaadiniin baa maanta xidhan oo xaqdarra ku xidhan maanta somaliland dad baa u xidhan kiisas ka liita kabtanku feka qosli wax noocaasa dad baa ku xidhan dad baa xaqdarra u xidhan dad baa u xidhan shalmad beluug bay qaatay waxaas waa ceeb wey qarannimada ceeb ku tahay dalka ceeb ku tahay madaxweynuhu inuu dadka isku wadaa wey iminka dadka uu magacaabayo markaad eegto xataa maanta liiskii ugu dambeeyey uu magacaabayo waxay og yihiin in meelihii uu afka badan ka helay inuu dowladdiina u bediyey taasi maaha madaxweyne maaha madaxweynuhu wuu muujiyaa inuu kii u codeeyey iyo kii ka codeeyey labadaba madaxweyne u yahay waynu dowladnimadiisu way noqotaa dowlad sawir qaran leh laakiin ma aha inay noqoto sawir kooxeed inay noqoto ama sawir xisbi dowladdiisu inay yeelato aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hadalkaygiina halkaasaan kusoo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.